Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan haboon daawada meelba aad joogtiinba kusoo dhawaada taxniini taariikhaha wadamada oo maanta ku taafulan doono dalka Poland ama Polish ama Jamhuuriyadda Polish waa wadan ku yaala bartamaha Yurub. Dalka Jamhuuriyadda Poland wuxuu ka mid yahay wadamada qaaradda Yurub, gaar ahaan kuwa dhaca bartamaha dalalka la jaarka ah. Dalka Poland waxaa ka mid ah Jarmalka, Ukraine, Belarus, Slovakia, Jamhuuriyadda Taashika iyo Ruushka iyo Lithuania. Dhinaca waqooyi galbeed waxaa ka xiga Baltic Sea ama badda la yiraahdo Baltic Sea. Caasimadda dalka Poland waxaa la yiraahdaa Warsaw. Heesta qarankana waa sidan. Uu ku fadhiyo dalkani waa in ka badan 120,000 dadka ku dhaqan waxaa lagu qiyaasaa 38 milyan. Afka looga hadlo dalkani waa afka la yiraahdo Poland. Diimaha ay kala haystaan dadka reer Poland waxaa ka mid ah diinta Kiristaanka, gaar ahaan madhabka kaniisadda Roma iyo Kaatoolika oo haystaan dadka reer 90% oo u dhigmata 75% dadka ku nool bariga, halka inta soo harta ay yihiin 5% diimaha kale ee haysta. Cimriga dadka reer Poland cimrigooda ragga waxaa lagu qiyaasaa 69, halka dumarka lagu qiyaaso 77 sano. Dowladda dalka Poland waxa uu shaqaysaa nidaamka jamhuuriga ah. Lacagta dalkani waxaa la yiraahdaa zloty ama SI. Warshadaha dalka waxaa lagu farsameeyaa alaabo ay ka mid yihiin mashiinada dhismaha dhuxusha, dhagaxda, kiimikooyinka, dhismaha maraakiibta, cunto diyaarinta, birta, quraarada, sharaabka iyo dunta, iyo intaayna wax ka badan. Beeraha Jamhuuriyadda Poland waxaa lagu beeraa dalagyo ay ka mid yihiin khudaarta kala duwan, qamadiga, baradhada iyo midhaha. Xoolaha dadka Polish ee ku dhashay jamhuuriyadda waxay dhaqdaan qansiirka iyo digaaga. Dhulka la adeegsado ee dalka Poland waxaa 47% kheyraadka dabiiciga ah ee dalkani waxaa ka mid ah macdanta, dhuxul, dhagaxda, gaaska dabiiciga ah, sulfur, copper, qalin, lead iyo cusbada. Waana ka intaa